بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إلهي بكلدي مهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bishii Abriil 2026 waxa uu soo saaray wareegtooyin isugu jira xilka qaadis magacaabis iyo isku bedel wareegtada xilka qaadista ah ayaan ugu horeysiin doonaa ku socota Axmed Carab Muuse Bulaale agaasimihii hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedado xilka qaadis mudane si aad la socoto xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay meerto iyo in hadba loo igmado cidda ugu habboon ee gudan karta waajibaadka qaran sidaas darteed waxa aan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilkii aad u haysay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaaga mahadnaqayaa muddadii aad xilka haysay iyo dadaalkii aad gelisay gudashada waajibaadka qaranka waxaan ku rajaynayaa guul iyo horumar dambe Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtada madaxweynuhu soo saaray maanta ee isku bedelka magacaabis iyo isku bedelka ayadna waxa u dhignayd sidan markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markii aan tixgeliyay ahmiyadda ay wasaaradahu hoos ku xusan u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhismaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan hoos ku qoran markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan u magacaabo mas'uuliyiinta hoos ku xusan kow mudane aadan cabdilaahi cabdulla nuur oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda horumarinta biyaha aan u bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland laba mudane cabdishakuur ismaaciil xuseen kaahin oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska aan u bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland saddex mudane cabdalla maxamed yuusuf cabdi oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta aan u bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland afar mudane khadar nuur cabdi buubaal oo ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka aan u bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland shan mudane maxamed cabdi xaashi cabsiye oo ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda aan u bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland lix mudane maxamuud cabdirasaaq cabdi maxamed oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca aan u bedelo agaasimaha guud ee cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland toddoba mudane sheekh ayaanle xasan axmed aan u magacaabo agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland